daawadayaal kusoo dhawaada Taha Inspires barnaamijkii saddexaad oo aan rabno inaan uga faa'iideyno dadkeena Soomaaliyeed wadanka Turkiga ku nool ama raba inay imaadaan sidaan hore u sheegay barnaamijkan ma ahan barnaamij aan ku dhiirigelinayo in maxaan ku yiraahdaa dadka Soomaaliyeed ay aan ugu dhiirigelinayo inay wadankan imaadaan ama u soo wareegaan hadafka kaliya aan ka leeyahay waxa waay in macluumaadkan ay noqdaan qayb ka yar adeegyada aad wadankan ka helayso ama adeegyada aad u baahan tahay ay ku fududeynayaan wadada mari lahayd qaabka u heli lahayd ay ku sahlanaato ujeedka aan ka leeyahay waa taas maanta barnaamijka aan idin la wadaagayo matolooyinka aan idin la wadaagayo waxay ku saabsan yihiin adeega caafimaad ee wadanka Turkiga wadanka Turkiga wuxuu leeyahay adeeg caafimaad oo ballaaran oo isugu jiro laba nooc private ah ama private hospitals iyo sidoo kaleeto state hospitals isbitaalaad gaar loo leeyahay iyo isbitaalaad dawladdu leedahay isbitaalaadka gaarka loo leeyahay waa isbitaalaad ganacsi loo furtay adeegyadooda ay qaali yihiin aad loo qancinayo dadka macaamiisha la qancinayo halka isbitaalaadka dawladuna ay yihiin isbitaalaad dawladdu leedahay adeegyadooda intooda badan ay balaash yihiin ama lacagtooda ay aad u sahlan tahay oo ay tahay lacag aad u jaban oo kuwa private-ka marka loo fiiriyo aad uga jaban labadaas nooc ay isugu jiraan guud ahaan isbitaalaadka wadanka waxay u kala qaybsan yihiin ilaa 4 marxaladood marxaladda koowaad ama heerka koowaad waxa la yiraahdaa isbitaalaadka ama xaaladka degdega ah xaaladka qofka u baahan yahay si degdeg ah emergency departments ama qeybaha caajilka ah ayaa waxa la yiraahdaa qeyb dhan waa isbitaal kastana uu leeyahay ayagoo gaar u furan waa la helayaa sidoo kale waxaa jirto isbitaalaad loo yaqaano darajada koowaad isbitaalaadka darajada koowaad waxa way waa xarumaha caafimaadka gaar ahaan kuwan oo maxaan ku yiraahdaa la dagaalamayo cudurrada faafa xarumaha u gaarka hooyada iyo dhallaanka aan dhehayni MCH iyo wixii la halmaala waxa la yiraahdaa adeegyada caafimaad ee darajada koowaad adeegyada caafimaad ee darajada labaad baa jiro adeegyada caafimaad ee darajada labaad waxa soo hoos galayo dhammaan isbitaalaadka gaarka loo leeyahay iyo isbitaalaadka dawladda ah balse aanan sameyneynin cilmi baaris aan sameyneynin ayagana waxay noqonayaan isbitaalaadka darajada labaad isbitaalaadka darajada labaad waa kuwa hoostaga wasaaradda caafimaadka ee wadanka hoostaga sameeyana cilmi baaris gaar ahaan isbitaalaadka ku xiran jaamacadaha iyo isbitaalaadka loogu talagalay inay sameeyaan cilmi baaris ayaa waxa la yiraahdaa isbitaalaadka ama adeegyada caafimaad ee hoos imaanaya darajada saddexaad waxaan rabaa in aan idin sheego halkan isbitaalaadka qof kasta sidoo adeeg caafimaad u helo wuxuu u baahan yahay wax la yiraahdo caymis caafimaad ayuu u baahan yahay caymis caafimaad isagana wuxuu yahay laba nooc waaye nooc dawladdu leedahay oo la yiraahdo caymiska caafimaad ee guud iyo mid kale gaar ah oo la yiraahdo caymiska caafimaad ee gaarka ah caymiska caafimaad ee guud waxa waaye qofkii leh wuxuu heli karayaa dhammaan adeegyada caafimaad ee u baahan yahay haday tahay bukaan socod iyo haday tahay bukaanka isbitaalka jiifanayo oo dhan wuu ka faa'iideysan karaa adeegyadaas oo dhan marka laga reebo amaliyaadka ama qaliimada loo sameynayo isqurxin sida maxaan ku yiraahdaa qof amaliyaad isqurxin sameynayo ama amaliyaadka la yiraahdo plastic surgeries ama labaadna waxa la yiraahdaa caymiska caafimaad ee gaarka ah caymiska caafimaadka ee gaarka intiisa badan waa caymis caafimaad oo raqiis ah lacagtiisu ay jaban tahay qofka sharikaad gaar ah ay bixiyaan uu soo sameysan karayo balse adeegyada uu helayo way xadidnaanayaan ma heli karayo tusaalaan qaliimada gaar ma heli karayo adeeg caafimaad kasta u baahan yahay ma heli karayo percentage-ka lacagta laga qaadayana way badan tahay caymiska caafimaad ee guud dadka gali karo way xadidan yihiin waxayna noqon karaan qofka inuu muwaadin yahay oo wadanka u dhashay ama uu shaqaale rasmi ah uu yahay oo si rasmi ah oo dawladdu ogoshahay uu ku shaqeynayo ama inuu qaxooti yahay ama magangalyoon uu yahay saddexdaas nooc dad ah ayaa ka faa'iideysan karo gaar ahaan meeshan mulaaxadaan u baahanahay oo inaan idin sheego dadka ardaynimo halkan ku imaanaya sidoo kale caymiska caafimaad ee guud way ka faa'iideysan karayaan laakiin bishart mar alaal markay wadanka soo galaan oo ugu horeyso ay fiis waxbarasho ku soo galaan 3 bilood ee ugu horeyso waa inay dalbadaan adeegaas caafimaadka caymiska guud loo yaqaano ay ku dalbadaan markaas bay ka faa'iideysan karaan hadii laakiin waqtigaas ayagu aysan dalban oo 3 bilood kadib ay dalbadaan waqtigii uu ka dhacay ma dalban karayaan intaas ka sokow caymiska caafimaad waxaan rabaa inaan ku xijiyo adeegyada farmashiyaasha ama daawada qofka sidii uu daawo u soo qaato uu farmashi ugu soo qaato marka hore wuxuu u baahan yahay in dhakhtar daawo u soo qoray oo farmashiyaha la taga kadibna daawadaas uu soo qaadanayo
daawooyin waxaa jiro basiid iska ah sida xanuun baabi'yaasha paracetamolka iyo waxyaabaha la mid ah qofku uu soo qaadan karo farmashiyaha isagoo wax warqad ah wadan laakiin daawooyinka qaar ma soo qaadan karo sida antibioticska amarna ma soo qaadan karo qof isagoo haysan warqad rasmi ah dhakhtar aysan soo qorin aada loola dagaalamaya antibioticada inuu faafo inay dadka isticmaalaan inay xoolaha usii gudubto yani aada loola dagaalamaya sidaas darteed qofka waxaa fiican in daawo kasta uu qaadanayo ay ahaato mid dhakhtar usoo qoray sidaasna uu daawadaas uu ku qaato farmashiyaasha waxay u shaqeynayaan normally waxay shaqeynayaan subaxii 7 subaxnimo ilaa habeenkii 9 habeenimo fiidnimo ay shaqeynayaan wixii saacadaas ka dambeeyo 9 habeenimo saacadaha ka dambeeya farmashooyin waxaa jiro oo la yiraahdo farmashooyinka kolka leh ama nawadji ajzaane la yiraahdaa farmashooyinkaas furnaanayo si aad farmashahaas u ogaato marka waxaa sameyn kartaa albaabkaas farmashka hortiisa lagu dhajiyaa farmashi hebel oo meel hebel ku yaalo ayaa furana ku qoran ama internetka gali karta waxa ku qori karta farmashaha xilligan kolka leh inta ku qorto ayuu ku soo baxayaan farmashiyaashaas kolka leh waxay shaqeynayaan saacadaha ka dambeeyo 9 habeenimo wixii ka dambeeyo iyo sidoo kale maalmaha fasax leeyahay sabtiga iyo ahadda wadankan uu fasax yahay maalmahaas ay shaqeynayaan waxaan rabaa talooyin guud inaan la wadaago dadka Soomaaliyeed adeeg caafimaad wadankan u soo doonanayo marka hore waxaa fiican intaadan wadankaada ka soo tagin inaad xaqiiqsato adeegan caafimaad ee u baahanahay ma laga heli karaa wadankan haddii adeeg caafimaad ee u baahan tahay uu yahay mid wadankaaga laga heli karayo marna kuma talinayno in wadan dibadeed aad adeeg caafimaad u doonato waa jirtaa daawooyin oo wadanka daawada taalo inaysan tayadeeda aysan aad u fiicnayn oo wadamo tayadooda la kontrolo aysan daawadaas laga keenin xaaladahaas oo kale waad kala tashan kartaa dhakhtarka Soomaaliyeed kala tashan kartaa sidii aad ku heli lahayd daawo tayo leh aad ku heli lahayd balse in adeeg kasta caafimaad aad dibad u aado aaday yani walaaskeeda iyo yani dhibaatadeeda u leedahay waxaa kaloo jirto markaad ku qasbanaato in wadan dibadeed aad adeeg caafimaad u doonato marka hore aad u xaqiiqso in yani isbitaalka ugu fiican iyo wadanka ugu fiican ee aad ka heli karto adeegaas caafimaad kaliya yani waxay yaqaanaan Soomaalida hal wadan bay u ordayaan wadankaas ay maxaan ku yiraahdaa ay ku wada daadanayaan laakiin waa laga fiican yahay yani wadan kasta adeegyada caafimaad oo dhan kuma wada fiicno wadan kasta wuxuu leeyahay adeeg caafimaad uu ku fiican yahay xitaa waxaa jiro cudurro iyo xaalad caafimaad oo kaliya lagu daaweyn karo wadamada bariga Afrika maadaama ay tropical countries ay yihiin oo loo doonan karin wadamada reer galbeedka ama wadamada qabowga aan loo doonan karin baa jiro marka sidaas darteed dhakhtar Soomaaliyeed la tasho marka hore xaqiiqso in xaaladaadii ay qasab tahay in wadan dibadeed aado kadibna wadankaad aadaysidna uu yahay wadan ku fiican adeegaas caafimaad ee u baahan tahay aad xaqiiqsato talada kale ee ku xigto waxa waaye mar allaar markaad wadan dibadeed adeeg u doonatid waxa aad u fiican inaad sugto oo isbitaalka howlihiisa aadan bilaabin ilaa aad ka hesho deganaanshahaas wuxuu ku sahlayaa inaad hesho adeegaas caafimaad oo raqiis aad ku hesho laakiin haddii adigoo baasaboorkaaga iyo fiisahaaga kaliya aad tagto wadankaas aad dhahdo howlihii adeega caafimaad aan ku heli lahaa iyo howlihii isbitaalkan galaya taasi waxaa kaaga baxayo lacag aad u fara badan waayo markaas waxaa lagu ictibaarinayaa inaad tahay dalxiise caalami ah qofka dalxiise caalami markuu yahayna waxa way waa aada lacag qaali ah loo qaada adeegyadii 100 qof uu ku heli lahaa isaga waxa lagu siinayaa 1000 iyo wax ka badan lagu siinayaa sidaas darteed gaar ahaan haddii wadankan Turkiga aad adeeg caafimaad u soo doonato xaaladaadan aysan degdeg emergency aysan ahayn marka hore isku day inaad hesho iqaamada markaad iqaamada heshana yani aad isbitaalka ugu fiican adeeg caafimaad u baahan karaysid ka raadso talooyinkaas aan idin la wadaagaynaa insha Allah waxaan rajaynaynaa in wadankeena horumar badan iyo yani adeeg caafimaad oo dhameystiran aan gaarno dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa hadda qarxi ugu dambeeyay ee ku soo dhaawacmay wadanka Turkiga joogan inuu Ilaahay caafimaad degdeg ah siiyo aad u mahadsantihiin insha Allah waxaan idin la wadaagi doonaa talooyin kale oo barnaamijkan ama nolosha Turkiga ku xiriirto nagu xirnaada dadka is leedihiin wadankan Turkiga ay joogan ama way imaan rabaan la wadaag barnaamijyadeeni insha Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.